black hole ka awood badan Deathstar hal. Maxaa dhacay? Astronomers waxay labo eber hal sideed arkeen black hole aad u weyn oo liqaya xidig ku soo dhowaaday. Dhacdadan waxaa loo yaqaan at labo eber hal sideedhiis. Waxay ahayd tidal disruption event marka xidig la jajabiyo oo la liqo. Labo, wax aan caadi ahayn, tamarta oo weli kordhaysa 4 sano kadib, tamarta uu black hole ku sii daayo weli way kordhaysaa, halkii ay hoos u dhiri lahayd. Labo eber labo ayaa markii ugu horreysay laga helay radio wafis xoog leh, hadda waxay noqotay 5 eber jeer ka iftiin badan sidii markii la arkay 3. Maxaa sababi kara kororka tamarta? Cilmi baarayaashu waxay soo jeediyeen laba suurtagal. Delayed outflow tamarta iyo walxaha uu black hole ku tuurayo waxay bilaabeen inay soo baxaan labo eber maalmood kadib dhacdadii, halkii ay isla markiiba diri lahaayeen. Jet xawaare sare ku socda waxaa laga yaabaa inuu jiro jet aad u degdeg badan oo markii hore qarsoonaa, laakiin hadda muuqda maadaama uu gaabis noqday 4. Tamarta uu soo saarayo waa waali. Markii la xisaabiyey tamarta, waxay la mid noqotay gamma ray burst, kuwa ugu awooda badan caalamka. Cilmi baarayaashu waxay yidhaahdeen black holekan wuxuu ka awood badan yahay Deathstar ugu yaraan 1 trillion jeer, xitaa wuxuu gaari karaa 1 eber trillion jeer 5. Maxaa la filan karaa? Tamarta radioga ee dhacdadan waxay sii kordhi doontaa ilaa 2 eber 7. Waa dhacdo aad u naadir ah, waxaana laga yaabaa inay muujiso in tidayo kale oo qarsoon ay jiraan. 6. Maxay tani muhiim u tahay? Waxay muujinaysaa in black holes ay yeelan karaan fal-celin dib u dhacda oo aad u xoog badan. Waxay furaysaa su'aal cusub. Imisate oo kale ayaa jira oo aynaan weli ogaan.